kala duwan ee dowladda ururada bulshada saxaafadda iyo martisharafta kale waxaan marada leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sharaf weyn bay ii tahay inaan maanta idin imaado si aan u furo kalfadhiga golaha wakiilada warbixin koobanna idinka siiyo xaaladda guud ee dalka aniga oo khudbadayda diiradda ku saaraya arrimaha amniga siyaasadda arrimaha bulshada horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxlamida ma rabo inaan idinku mashquuliyo macluumaad tiro badan oo ay dhici karto in aad badi ka warqabtaan waxaanse isku dayayaa inaan warbixin guud idinka siiyo meesha wax maraya haddaan u imaado arrimaha amniga mudanayaaliyo marweyn xaaladda ammaan ee dalka waa 100% marka laga reebo shaqaalooyin ka dhacay miyiga halka ee gudoomiyuhu ka hadlayay ee aaga magacda iyo wareeg arrintaasna waxaa u kacay waxgarad isugu jira isimo ururada bulshada iyo dowladda puntland oo juhdi badigeliyey sidii dadkaas walaalaha ah loo nabadayn lahaa waxaan rabaa si gaar inaan uga mahadnaqo islimada reer jubbaland iyo madaxweyne jubbaland oo u soo diray wafdi inay ka qayb qaataan nabadaynta dadka walaalaha mahad gaar ayaan celinayna meel dheer baan uga yimaada arrinta arrintaas hadda meel fiican bay maraysaa waxaan ku rajo weynahay in xal waara oo waafiya laga gaaro maanta gobol kasta oo puntland ah waxaa lagu seexday saaka nabad waxaana lagu soo toosay nabad wax shido iyo dib ah oo ka jiraan ma jiraan waa wax ilaahay loogu mahadnaqo in maanta meeshaad doonto puntland aad mari karto adiga oo wax walwala ka qabin inay dibi soo gaarto naftaada maalkaaga iyo sharaftaada waxaa si xawliya u socda isbeddelkii lagu sameynayay ciidamada booliiska puntland waxaa jimcihii ugu soo xiray tababar ciidamo gaaray 500 oo askari dugsiga tababarka ee jilaalbatukade ee degmada xarfo waxaa iyana tababar ku soo dhammaystay ciidamo 700 kor u dhaafaya dugsiga tababarka ee carmo ciidankaasi waxay iyagoo agabkoodii u dhanyahay ka hawlgeli doonaan gobollada kala duwan ee puntland waxaa mahad gaara u naqayaa taliyaha ciidanka booliiska ee cusub oo intii yarayd oo uu shaqaynayay isbeddel la taaban karo ku sameeyey ciidanka booliiska waxaa maanta lagu faani karaa in ciidanka booliisku uu yahay mid tababaran oo tira kooban kana hufan caglaysi iyo musuqmaasuq ciidamada daraawiishta ee puntland ay taageerayaan ciidamada kale ee qalabka sida waxay durow wax ku ool ah ka soo hoyeen cadowgii al-shabaab ee ku dhumaalaysanayay buraleyda galgala dagaalkii aan kula jirnay cadowgaasi wuxuu marayaa heer gabagaba ah waxaan rajaynayaa in waqti aan dheerayn lasoo afmeero waxaan rajaynayaa in dadkii ka barakacay galgala iyo nawaaxigeeda in ay si nabadgelyo ah guryahoodii ugu soo laabtaan inkastoo cadowgani yahay mid leh mabaadi'u guracan oo qorsho fog leh mar walbana gacan ka helayay xogo kale oo dan islaam iyo dan soomaaliyeed midna aan maanka ku hayn haddana puntland iyo ciidamadeedu way ka feejigan yihiin khatar kasta oo ku soo foole ama ha ahaato mid dhow ama ha ahaato mid dheer arrimaha bulshada
lala kordhiyo oo la gaarsiiyo adeega arrimaha bulshada gaar ahaan deegaamada ka fog laamiga sidii ballantu ahayd. mataal waxaan deeq waxbarasho u dirnay qaar kalena u diyaarinay arday kor dhaafaysa 150 annagoo qoodo gaara u samaynay dadka la haysooco iyo ardayda wax ka barata deegaamada ka fog laamiga. sababtu waxaa weeye ardayga aqoontiisa iyo buddadiisu waxay ku xiran tahay resourceka uu helo. saas daraaddeed ayay waajib ugu tahay in dib loo eego qaabka loo bixiyo iskoolashiyada amase deeqaha waxbarasho fiiro gaara loo yeesho dadka ka fog laamiyada ee aan helinin resource ku filan dhanka waxbarasho. waxaan dhowaan heshiis la galay dowladda Jarmalka iyo hay-adda UNICEF in ay lacag kor u dhaafaysa 20 milyan oo euro la geliyo caafimaadka iyadoo wax badan ka bedeli doonta adeega caafimaadka ee Puntland. haddii sida uu yahay mashruuca lagu higalo waxaan rajaynaynaa in uu wax badan ka bedeli doono tayada caafimaad ee Puntland. waxbarashada iyo caafimaadku waa asaaska nolosha qofka muwaadinka ah waana adeegu xaq u leeyahay. duruufta dhaqaale noo saamixi mayso in aan geed walba dadka ugu geyno waxbarasho iyo caafimaad la'aan, laakiin waa inaan helnaa ama aan dhignaa aasaaskii. dhanka biyaha dowladdu waxay ka qabatay wax badan arrimaha biyaha. waxaan annagoo la kaashanaynaa hay-adda Bacsaweyn iyo bangiga islaamka iyo hay-adda SSF Somali Stability Fund ka qodaynaa ceelal kor u dhaafaya 30 ceel inta u dhaxaysa min Tawfiiq ilaa Damalaha Hagare iyo min Xiriiro ilaa Xero Jaalle. waxaan loo qorshaysan ajandaha ku jira dowladda waqtigeedana markii la gaaro 2030 marka la gaaro in Puntland ay gaarto isku filaansho dhanka biyaha. lama aqbali karo in qarniga 12aad ay dadka Puntland ugu dhintaan oo iyo hada u dhintaan oo yaga. inta aan joogno Puntland waxaan isku dayaynaa in aan ka qabto jid iyo biyo. waxaan aaminsanahay in haddii culayska la saaro jid iyo biyo in nolosha dadka Puntland wax badan iska bedeli doonaan. daga kaabayaasha dhaqaalaha Puntland waxay maalinta ka dambaysa horumar taaban karo ka gaaraysa dhanka kaabayaasha dhaqaalaha ama infrastructure. dowladdu waxay ka hore go'aansatay in ilaa wax badan laga qabto kaabayaasha dhaqaalaha Puntland inaanan ka baxayn xaaladda adag ee la ku xeeran. waa muhiim si loo helo maalgashi dabadeed koboc dhaqaale iyo horumar dhanka wax soo saarka ah inaan wax ka bedelo kaabayaasha dhaqaalaha. waxaa bisha December dhammaanaya dhismihii airportka Boosaaso oo aan rajaynayo inay dhowaan yimaadaan duulimaadyo caalami ah. waxay Puntland iyo dadkeedu ka bixi doonaan go'doonkii iyo sidii ka haystay dhanka socdaalka. dhismihii airportka Garowe wuxuu bilaabanayaa bisha November. waxaan rajaynaynaa inuu dhammaado bisha October ee sanadka soo socda. garoonkani wuxuu loo leeyahay muhiimad gaar ah taasoo ah inuu wax weyn ka bedeli doono wejiga caasimadda Puntland. dal iyo dowlad walba waxaa laga cabiraa ama loo qiimeeyaa muuqaalka meesha ka soo degtay. caasimadda Puntland ee Garowe qurux ma yeelanayso haddii muraayadii laga soo gelayay ay foolka. balaarinta dekada Boosaaso balaarinta dekadu meel fiican ayay maraysaa. waxaan filaynaa in surveillanskii yimaadaan bisha dhammaadkeeda qalabkii kalena uu dhowaan soo gaaro wuxuu maalgashadahan inoo sheegay oon kula heshiinay inuu iyadana dekada garaaca dhismaheeda wax badan ka qaban doono si ganacsiga Ethiopia iyo Puntland wax isaga bedelaan.
wadada Garowe iyo Gaalkacyo socdaalkii ugu dambeeyay ee aan ku tagay Nairobi waxay EU iyo GIC noo sheegeen in hawsha wadadu si xawli ah u bilaaban doonto bisha January ee sanadka 2016 wadadan oo ah halbowlaha ganacsiga Puntland wuxuu dhismaheeda wax way ka bedeli doonaa isu socodka gaadiidka iyo dadka Puntland wadada Ceelgaabo dhaqaale ururinteedii waxay maraysaa meel fiican waxaan rajaynaynaa in dhaqaalahaasi uu loo soo iibin doono qalab casri ah oo wadadaasi iyo wadooyin kaleba aanu ku dhisan karno sida ugu wanaagsan uguna jaban ee aan wadooyinkeena ku dhisan karnaay waa in aan qalab wax ku ool ah aanu helno mashruucaanina wax badan ayuu arrintaas ka bedeli doonaa hawlaha wada hagaajintu waxay ka socdaan meelo kale ee dalka ah oo marnaba inaan hadda tafaasiileeda ka bixiyo laakiin wadooyin kale dalka qaaraan meelaha fogfog ayaa iyada wax badan ay ka socdaan hawlihii aan ka wadnay Gaalkacyo sida aad la socotaan waxaan muddo 2 bilood ka badan ku sugnaa magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug dowladdu waxay halkaasi ka qabatay hawlo isugu jira xasilinta amniga wax ka beddelka cadaaladda soo celinta bilicda magaalada iyo dubahabaynta canshuuraha iyo dhaqaalaha gobolka iyo soo celinta hantida dowladda waxaan arrintaas gacan weyn ka qaatay xildhibaanada Puntland golaha xukuumadda maamulka gobolka iyo degmada iyo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada hawshaasi waxay ahayd hawl raagtay way ahayd in mar hore la qabto gobolkani wuxuu ahaa gobol dayacan kuna jira xaalad gooni ah una baahan in si dhow looga warqabo in magaalooyinka Puntland lagu shaqeeyo lagana shaqeeyo waxay ka mid tahay siyaasadda cusub ee Puntland meelo kale oo dalka ka mid ah ayaa sidoo kale la tegi doonaa lagana shaqayn doonaa waxaan ka xumahay in dad mas-uuliyiin ku sheega waan ka sahayn ee facebookyada fasiraad badan ka bixiyaan waase haddii aan u joojino fikirkooda gudhacan ee aadka hooseeya arrimaha Soomaaliya waxay maraysaa marxalad kala duwan ah waxayna u baahan tahay in mar walba la socdo hormuudna laga noqdo isbeddelka dhici doona masiirka Soomaaliya Puntland cidna nafagan uguma ah cid u daba fariisan mayno wixii xaq ahna sheegideeda cidna uga turi mayno waxaan dhawaan 2 shir kaga qayb galay magaalada Muqdisho waxaan keenay fakarkayga ku saabsan isbeddelka la filayo inuu Soomaaliya ka dhaco sanadka 2016 waxaan rabnaa inay meeshaas ka soo baxaan wax Soomaali dad u ah xaqna ah Puntland dheeraad dooni mayso laakiin xuquuqdeeda si waafi ah waan la xeelan lahayn ayay u raadsanaysaa gabagabadii waxaan idin rajaynayaa inaad ka doodaan ajandayaal dalka iyo dadka anfacaya una adeegaya horumarka iyo masiirka Puntland kalfadhiga 36 ee golaha wakiilada Puntland waa u furan yahay. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi